السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي kusoo dhawaad mar kale muuqaal cusub. Muuqaalkana maanta waxaan ku soo qaadan doonaa du'aal idmo gabar ogaatay in ninkeedu marka uu baxo uu soo tugsado lacagtii waxyaabaha uu ka biilanay ama biilahan u siinay laga keenay lacag la soo tugsaday, balse ayada ma oga intaas oo hadda ay ogaan doontaa. balse asii markay weydiiso xagee aadaysa ay ku dhacdo wuxuu ku leeyahay waxaan socdaa shaqo iyo macnaha faarahaas u galaa. marka balse inta muuqaal guud galin waxaan ka codsanayaa dadka markii horeysa soo booqatay channelkayga inaad subscribe saartay, sidoo kale gambaleelka aad furto si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aan soo gelino. hadda hore noo joogtayna waxaan ka codsanayaa muuqaalkeena aad like gelisid, sidoo kale asxaabta aad la wadaagtid. haatan noo bilaabo muuqaalkeena. gabadhani waxay rabtaa inay ogaato ninkan telefoonkiisa wax uu ku qarqarinayo, asigoo ma ogola telefoonkiisa inuu u dhiibo, balse waxay rabtaa hadda inay ka faa'iideysto inta uu jiifo. gacanta ay wax u marisay si marka telefoonka uu furmo oo uu sawiran passwordka. ninkan uu soo kacay qabti waxaas uu ku kacay telefoonka ayuu qabtay wuu furay, fariin ayuu ka jawaabay oo iska dhigay. ma ogeen la dabagalo macna dabagal uu sameeyo. gabadh way soo istaagtay, mobilka ayay qabatay, bur ay ka buuxisay maadaama markii hore ninkan gacantiisa u qoyneed. bur ay maxaas marisay, markay soo qaadin ka afuuftay burkii, balse waa uu ku sawiran yahay macnaha passwordka ninkan uu galiyo. qalaas u fududaatay marka in telefoonkiisa ay furto si uu ogaato bashqada ninkan uu diro iyo meel uu la hadlo. telefoonkiisa ayay furtay, telefoonkiisa markay aragtay waxa fariimo badan ay aragtay, qaarkoodna way ka jawaabtay, qaarna waxa waaye aysan ka jawaabin. markii ka jawaabtay waa loo soo jawaabayaa oo jawaab ayaa la soo siinayaa. ninkan uu soo kacay wuxuu arkaa gabadhana meesha taagan, wuxuuna maxaa ka qaldan meesha maxay u taagan tahay. ayadoo iska dhaxaysa markaa way soo jeesanaysaa, waxay leedahay may adaa ku imaaday, waxaa rabay inaad rabtid inaad ku keeno, waxa u baahan tahay ma jiro. markaas wuxuu ku leeyahay wax muu baahnay waa maasan tahay, idin iska leeyahay waa yahay iska tagaysaa. ninkan uu soo diyaarinayaa inuu baxo rabaa shaqadii inuu aado rabaa. telefoonkiisa ayay keenaysaa, kadib wuxuu ku leeyahay waa maasan tahay. kadib waxay ku leedahay xagee aadaysaa oo u socotaa. kadib wuxuu leeyahay waxaan u socdaa shaqada ayaan u socdaa oo waan soo shaqaynayaa, adiga maxaa ka galay meesha u socdo. kadib wuu baxayaa. ninkani wuxuu aadi doonaa meelihii uu aadi jiray ayuu aadayaa. gabadha markay ka murugoonaysaa ninkani meesha uu qabanayo, balse waxay isku dayaysaa inay dabagasho oo meesha uu aado ay soo fiiriso. khalaas way soo dabagashay, way soo baxday, way soo raacday. ninkii ay soo dabagashay si ay u soo ogaato ninkani meeluhu aado iyo wax uu soo qabto. ninkaas uu soo socday wuxuu u imaanaa nin kale oo meel taagan. ninka uu ku qaylina wuxuu ku leeyahay macnaha wala canaanna saacadaas socotay maxaa waaye waa soo dahday, saa maxaa waaye shaqo martid miya camal waxyaabahaas macnaha asoo loogala hadlayo ay arkaysaa. kadibna way naxaysaa, way soo dhawaanaysaa oo derbi agtiisa ayuu soo dhaw. ninka telefoonka u dhiibanaa wuxuu iska bedelaa dharkii oo watay, wuxuu gashanaa dharkii lagu tugsado ayuu gashanaa, madaxa ayuu ku xirnaa maro. ninkan wuxuu isku diyaariyay xitaabo in uu soo tugsado, madaxa ayuu maro madow ku xirtay, balse ninka kale wuxuu arkaa gabar meesha taagan. gabadhina way soo baxaysaa, ninkan wuu naxayaa maadaama ay naagtiisa tahay. kadibna waxay ku leedahay maxaa kaa qaldan miyaad tugsataa. kadib wuxuu ku leeyahay sidaan ayaa nafta ka maareeyaa oo macnaha ku soo shaqeeyaa. waxay leedahay ma lacag la soo tugsadaa noo keentaa. kadib wuxuu leeyahay shaqo dhaanta waaye oo wax kale ma hayo, sidaan ayaa nafteena ama nolosheena ku maareeyaa. kadib way leedahay war lacag la soo tugsata ma anina siinaysaa, shaqo kale ma weyse macnaha waa ay khiyaantay. waxyaabahaas ay u jawaabaysaa. ninkina aad u naxayaa. kadibna ninkii agtiisa taaganaa kusii qaylinaya wuxuu ku leeyahay war soco shaqada gaari soconiyo soo shaqayniyo. ninkii naagta meesha taagan ayuu ka tagayaa, wuxuu leeyahay siisu. naagta madaxa ay gacanta saaranaysaa, way iska ooynaysaa. marka qofka telefoonkiisa waxyaabo badan oo qarsanayo ayaa ka buuxo oo san rabin in lala ogaado. laakiin gabdhaha midda ku xirnaa ama ku qufulina waxay tahay ama gabar kala qarinaa iyo waxyaabahaas wax lamid. laakiin waxaa laga yaabaa arrinta intaas inay ka weyn tahay, eese macnaha nolosha waxa cuni lahaayeen ninkani inuu macnaha wax meel caadi ahayn u ka keeno. sidoo kale waxa aad iyo aad u xun adoo 20 jir ah oo shaqaysan karo inaad macnaha tugsatid
taas ayaan ahayba hadaba muuqaalka haddaa ka hesho waxaan ka caawisanaa inaad like saarto sidoo kale asxaabta la wadaagtid haddaan u cusubtaana nagu soo biiro oo subscribe saaro maasanid